runtii aad iyo aad bay sharaf nagu ahayd maanta kalimaadkiina inaan maqalno wanaagsan iyo sida loola diyaar yahay in la caawiyo Soomaaliya. waxaan ka marqaati kacaynaa runtii in deegaamada hadda la xoreeyay oo Hirshabeelle iyo Galmudug in ugu yaraan 110 activity oo shaqo oo qaarna dhamaadeen qaarna socdaan qaarna aysan wali bilaaban inay halkaas ka socdaan ay qorsheysan yihiin ay ugu dambeysay tii European Unionka oo 4.5 oo saldhigyada booliiska iyo ceelasha lagu dhisayay labada state inta badan 4 degmo 5 degmo oo kuwii la xoreeyay kamid ah. waxaan runtii rabnaa inaan bogaadino shaqadaas wanaagsan oo sanadkii la soo dhaafay waliba iyadoon aad loo fariisan markii hore oo dagaalku degdeg ku bilowday inay nacaawiyeen dawladda Mareykanka oo ay ugu horeyso USAID-ka oo DT Global isticmaalaysay iyo Norway oo NICE Foundation uu isticmaalaysay iyadana European Unionka iyo dawladda Ingiriiska oo ERI barnaamijkaas oo runtii degdeg meeshii biyo booyad biyo looga baahdo oo la yiraahdo meeshaas hadda la xoreeyay booyad biyaha loo baahan yahay raashin baa loo baahan yahay isla markiiba gaarsiinayay koolka ka yimaada gudaha iyo deegaanka iyo ciidanka SNA-da oo meesha xoreeya dhawaqooda ayay ku shaqeynayeen meelaha qaarkood cuntada waa loo daadinayay marka runtii shaqo fiican ayaa runtii deegaamadaas ka socota waan bogaadinaynaa waxaan rabnaa inaan darsi ka baranno wixii la soo maray oo deegaamadan cusub intaan hadda dagaalku ay bilaaban in qorshuhuba oo noo sii degan yahay oo qayb ay ka noqotay stabilization-ku weerarka iyo hujuumka iyo arrimaha ciidanka inuu qayb ka noqdo runtii aad baan u bogaadinaynaa hay'adahaas kala duwan oo mahad celinaynaa mashruuca cusub oo Prosperous oo dawladda Norway hadda ay ku dhawaaqdayna isagana wuxuu qayb weyn ka ciyaari doonaa inuu hawlihii stabilization-ka uu sii xoojiyo iyo xasilinta runtii waxaan u mahad celinayaa Major Ray oo runtii uniformkiisa halkan la yimid oo dawladda Mareykanku ay wax weyn cumqiga iyo meelaha aan la gaari karin oo argagixisadu ay ku qorsheyso weerarada gaara dhammaan waxaa rabaa inaan u mahad celiyo inta meeshaan joogta barnaamijka stabilization-kuna hadduu kow noo yahay waayo deegaamadii ubuucda ay dhigteen 2 degmo Galmudug ka tirsan iyo galbeedka Hiiraan meelo la xiriira wabiga xag ka xiga iyo 2 state oo deegaamada ugu badan hadda maaragtay qaarna kala xirxiran yihiin qaarna shabaabka ay gacanta ugu jiraan operationka Black Lion oo marna uu noo bilaaban doono haddii la yiraahdo waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo imaanshooda halkaan ay yimaadeen iyo soo ajiibidooda ay halkaan soo ajiibeen iyo inay arkaan wasaaradihii arrimaha gudaha iyo dawladda federaalka ahayd iyo hay'adihii kala duwanaa state-yada iyo kuwii maaragtay federaalka intuba oo isku duuban oo isku qorshaa oo wada socda oo u socda hal afna yeelanaya haddii Ilaahay yiraahdo shirka soo socdana lagu soo bandhigi doono stabilization-ka iyo qaabkiisa cusub iyo review lagu sameeyay istaraatiijiyadda hore aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale